sidee loo setup gareeyaa iPad cusub looguna xiraa Apple ID cusub. markaad soo iibsato iPad cusub ama iPhone cusub oo box ka furto waxa ku soo baxaya boggan ugu horeeya oo salaan ah halaw camal oo luqado kala duwan ah. kadibna wuxuu ku weydiinayaa inaad doorato luqadda. haddaan doorano marka luqadda English. kadibna wuxuu ku weydiinayaa inaad doorato waddanka aad joogto. halka ugu horeysa wuxuu si automatic u soo qabanayaa waddanka aad joogto. kadibna boggan ayaa ku keenaya marka hoos u bax ay ku dhufo setup manually. kadib wuxuu mar kale ku tusayaa luqadda uu iPad-kaaga ku shaqeyn doono. kadibna wuxuu ku weydiinayaa inaad doorato Wi-Fi-ga gurigaaga. hadda maadaama aan gurigeyga joogo waxaan dooranayaa Wi-Fi-gayga. kadibna ku dhufo next. halkan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad Face ID ku xirato. haddii uu iPad-yadii hore yahayna wuxuu ku weydiin doonaa inaad Touch ID ku xirato. ama hadduusan Touch ID lahaynna wuxuu ku weydiinayaa inaad PIN u samaysato. qasabna maaha inaad wax security u samaysato. hadda inaan waqti badan ku lumiyo ma doonayo marka waxaan leeyahay set up later in settings. hadhow ayaan settingka ka setup gareysan doonaa. halka marka wuxuu ku weydiinayaa inaad passcode samaysato si aad macluumaadkaaga u xafido sidoo kalena aad u furto iPad-kaaga. waxaadna dooran kartaa ilaa 6 xaraf ama 6 number. si aan marka macluumaad badan u aragno waxaan leenahay passcode options. kadib halka marka wuxuu ku siinayaa haddaad doonayso inaad xarfo kaliya ku xirto xarf ayaad ku xiri kartaa. haddaad doonayso number kaliya inaad ku xirto number aad ku xiri kartaa. haddii marka aad 6 number ay kugu dheer yihiin oo doonayso inaad 4 number kaliya ku xirtana 4 baad dooran kartaa. haddii marka aad si degdeg ah doonayso inaad iPad-kan u sad gareyso sida hadda aan sameynayo kale waxaan leenahay marka don't use passcode. marka passcode uma baahnin maadaama aan hadda casharkan duubayo. kadibna wuxuu kugula talinayaa inaad passcode isticmaasho maxaa yeelay macluumaad badan oo iOS ku jiro ama sida Apple ID oo kale ma shaqeynayo without password. laakiin maadaama aan doonayo inaan casharkan si degdeg ah u duubo waxaan leeyahay don't use. markastana ogow waxaad oran kartaa create password oo dib aad u laaban kartaa oo password aad samaysan kartaa. hadda laakiin waxaan leeyahay don't use. halkan marka wuxuu ku weydiinayaa inaad soo wareejisato applicationada. tusaale ahaan haddii aad backup ka samaysatay iPhone-kaaga ama iPad-kaagii hore waxaad leedahay marka restore from iCloud backup. haddii sidoo kale backup-ka uu kugu save gareysan yahay PC-gaaga ama Mac uu kugu save gareysan yahay waxaad leedahay restore from Mac or PC. haddii marka iPad kale ood gacanta ku haysato aad doonayso laba iPad inaad isku xiriiriso ood kasoo transfer gareysan waa samayn kartaa oo waxaad ku dhufanaysaa transfer directly from iPad. haddii marka ay datada kugu jirto sida applicationada qaar ay kugu jiraan Android ay kugu jiraan sidoo kale move data from Android ay ku dhufanaysaa. waxa inta ku dheer marka haddii intaasoo macluumaad aadan haysanin oo iPad-kan uu yahay kii kugu horeeyay ama aad doonayso inaad iPad cusub ahaan u isticmaasho kadibna waxaad leedahay don't transfer apps and data. halkan marka ku dhufanay aniga maadaama aan doonayo inaan u setup gareeyo iPad cusub ahaan. halkan marka wuxuu ku leeyahay Google Apple ID-gaaga si aad u isticmaasho iCloud iyo App Store-ka. haddii marka aad leedahay Apple ID-gaaga emailkiisa aad halkan gelinaysaa. laakiin maadaama aan casharkan ku baranayno sida qofku cusub waxaan ku dhufanaynaa halkan oo ah forget password or don't have Apple ID. taas macnaheedu waa haddii aad ilowday password-kaagii ama aadan lahayn Apple ID halkan ayaad ku dhufanaysaa. halkan ayuu marka 3 option ku siinayaa